هاي مركي si kooban loo qeexo qof aan ka shaqaynaynin danta qofka Soomaaliyeed qabiilka Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed aan ka shaqaynaynin ay dan u tahay waxay dan u tahay dawlado waliba waa adkaynayaa meesha waxay dan u tahay dawlado idinka baad garanaysaan oo markii xiliyadan oo kale la soo gaaro xiliyadan oo kale marka la soo gaaro shaqadoodu ay tahay inay siyaasiyiinta Soomaaliyeed kala laaluushaan kan u yeed lacagsi orod wax qarxi orod wax kharib orod wax ay orod wax dhib taa ka dhig xilligoodii waaye waa mowsimkii xilligii beertoodu ku jirtay waa waxaan ognahay inay dawladahaas hebel u yeer haddana hebel u yeer deedna waxoogaa yaroon micno lahayn mararka qaarkood saaxiibaday qaarkood runtii waxaan ogahay ayaguna ay og yihiin erayada ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed inayna ula jeedina inay meel kale u wadaan anna waan ogahay asna waa ogyahay message-kaas hadallada qaarkood waa xisaab xir waana waan ogahay asna waa ogyahay xisaab xir waaye marka hadalla xisaab xir ah oo meel kale loo wado oo dawladda ku socda oo qorshe kale loo wado oo waxyaabo yaroon micnaha la dhaafsanayo dadka Soomaaliyeed dantoodii labadii arrimood ay abid u soo dagaalami jireen ee lagu yaqaanay inay kaligood isku wadaan oo ah difaaca dalkooda iyo doorashadooda in lagaga mashquuliyaa la rabaa dawladahaas in badan oo kamid ah waxay diidan yihiin dhaqaalaheena inaan la soo baxno waxay diidan yihiin shidaalkeena la soo baxno waxay diidan yihiin resourcekeena la soo baxno waxay diidan yihiin inaan xorowno taakooyin baa naloo dhigayaa abidkeedna waa naloo soo dhigi jiray nasiib darro mar walba dad Soomaaliyeed ayaa u khidmeeya cadawga mashaariic dalkan ayaa laga samaystay markay xiliyadan oo kale la joogo in la yiraahdo go'a idhig igu shub anaa hor istaagaya anaa dhinaca ka soo jajabinay waxaan u baahanahay arinta inaan ka xorownaan u baahanahay dadka Soomaaliyeed waxaan u baahanahay indhahoodu kor u taagnaadaan rabnaa waxaan rabnaa inay fiiro gaar ah u yeeshaan dadka noocyadaas u shaqeynay inay fiiro gaar ah u yeeshaan dawladahaas inay fiiro gaar ah u yeeshaan taas aan u baahanahay waxaan mar kale anigu aad u adkaynayaa war doorasho dadban dalkana dan uma aha adigana dadkuuma aha dankuuma aha oo kuguma jirto waad ogtahay beelaha Soomaaliyeedna dani ugu jirto cid ay dani ugu jirto ma jirto shisheeyay dani ugu jirtaaye dadka Soomaaliyeed awoodooda dastuuriga ah loo daayo dadka Soomaaliyeedna yaan buuq lagu abuurin waxaan ugu baaqayaa ururada siyaasadeed ee isdiiwaan galiyay in ay ka shaqeeyaan inay dadku isdiiwaan galiyaan doorashada isu diiwaan galiyaan oo ay u tartamaan sidii ay ku soo bixi lahaayeen oo axsaab qaran u soo bixi lahayd waxaan ugu baaqayaa dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed in wada hadalka furan ee madaxweynuhu ku baaqay in la yimaado laakiin in laga hadlo see dalkeena u difaacnaa seen doorasho qof iyo cod aan u samaysanaa seen danaheena u shaqaynaa laakiin adiga oo jeebasha kaaga buuxaan waraaqo ay dawladda leeyihiin iyo dana shisheeye inaadan noo imaan adigoo nadiif ah oo Soomaali ah oo ka shaqaynaya danta Soomaaliyeed noo imo marna iskuma diidayna dan Soomaaliyeed waan soo dhaweynaynaa waxaan rabnaa ayaga oo muxtarimiina oo Soomaaliyeed annagoo walaalaha dhammaanteen oo gacmaha haysaysana inaan danta dalka iyo dadka iyo diinta Soomaaliyeed inaan ka wada shaqeyno waana midaan kulligeen ku dhaaranay taa inaan ka wada shaqeynaan u baahanay